تسهشيس لغويا وعندنا a polynomial like 23 consisting of only non-zero constant term has no has degree 0 marka polynomial kasta oo non-zero constant term sida 23 oo kale number kasta oo qiyaas qaado number kasta oo zero ahayn degree-giisu 0 noqonaya laakiin waxaan dhahaynaa waxa la isku raacsan yahay hadii polynomial kaasi uu yahay 0 hadii uu yahay ma lahan degree ma laha heshiis lagu yahay heshiis it's agreed that the polynomial consisting only of 0 has no degree ma laha wax degree ah marka polynomialka haduu yahay constant term haduu yahay degree-giisu waxa waaye 0 laakiin hadii uu yahay constant term polynomialka haduu yahay non-zero constant term degree-giisu waa 0 laakiin polynomialka haduu yahay 0 hadii uu yahay degree ba ma laha taas heshiis baa lagu yahay oo heshiis lagu yahay marka guud ahaan polynomialka qaabkaas yaa loo dhigi karaa daan isla fiirino example-kan wuxuu ku saabsan yahay degree-ga waxaan rabnaa polynomialskan soo filan polynomials inaan soo saarno degree-gooda okay find the degree of each polynomial example 1 find the degree of each polynomial number A 2x minus 9 number B y square minus 3 divided by 2 plus 5 y power 4 number C ugu dambeyntii waa 7 markaan sameynayno polynomial kasta degree-giisa markaan sameynayno waxaan dhahaynaa marka haddaan polynomial intan aan geli degree dhaha okay markan koowaad maxaa waaye number A waa 2x cube minus 9 number B y square minus 3 divided by 2 plus 5 y power 4 number C waa 7 marka kan waxaan dhahaynaa degree-giisu waxa waaye طبعا termiga degree-giisu waa 3 termiga degree-giisu waa 0 marka mid ka weyn qaado degree-giisu waa 3 kan markaan soo saarayno degree-giisa oo qor horta descending form oo qor kan descending form markaan u qoro waa 5 y power 4 intan waxay noqonaysaa plus y square minus 3 divided by 2
marka digrigiisu waxa uu noqonayaa aan dhahaynaa waa 4 la sawiran kan digrigiisu waa 0 kan digrigiisu waa 2 kan digrigiisu waa 4 digrigiisu waa 4 okay kan waxaan dhihi karnaa waxa loo qori karaa 7x power 0 marka digrigiisu wuxuu noqonayaa aan dhahaynaa 0 iyo noqonayaa isagana digrigiisu okay marka saddexdan polynomial kan koowaad digrigiisu waxa waaye 0 waa 3 kan labaad digrigiisu waxa waaye 4 kan ugu dambeeya digrigiisu waxa waaye 0 halkaas aan sameeynaa gudaha marka soo saaraysid digriga uu leeyahay polynomial in one variable hadduu yahay polynomialkaaga digrigiisa markaa soo saaraysid termska ku jira polynomialkaaga isha mare midka ugu digriga weyn digrigiisa ayuu noqonayaa polynomialkaaga digrigiisa markaad kan fiirisid digrigiisu waa 2 digrigiisu waa 0 digrigiisu waa 4 marka 4 buu noqonayaa polynomialkan digrigiisu wuxuu noqonayaa 4 ayuu noqonayaa kuwa kalena qaabkaas oo kale ay noqonayaa